musuqmaasuqu waa jidka halaaga u horsada dowladnimada waa qalinkii Yuusuf Maxamed Ismaaciil. musuqmaasuqu waa aafo ka mid ah aafooyinka bulshooyinka casriga ah soo waajaha waana astaanta dib u dhaca iyo ka dheeraanshaha qiyamkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaa. musuqmaasuqu waa cadowga weeqa dowladnimada ee markaasi ku keena dowladnimada dib u dhaca, burburka ama se ugu yaraan in ay ku fashilmaan xukuumaduhu wixii loo doortay. musuqmaasuqu waa mid isagu ku lid ah wax kasta oo ah wanaag iyo sharaf mid muujinaya. musuqmaasuqu waa xarumaha xaqa maamulka ee ku takrifalidda awoodda dowladda sharciga oo la fududaysto isla markaana danta gaarka ah laga horumariyo danta guud, sidaasina ay ku lunto maslaxaddii ummaddu. falanqeeyayaal badan ayaa waxay ku doodeen in sababaha dhiirigelinaya in musuqmaasuqu dhaco inay isugu jiraan kuwa siyaasadeed, kuwa salka ku haya ducfinimo iyo taagdarro ka jirta dhinaca hay-adaha dowladda iyo ururada bulshada ee civil society-ga, iyaga oo markaasi ka gaabinaya inay u hoggaansamaan sharciga kuna sifoobaan karti xumo, hufnaan la'aan, halkaasina ma lagu doodsiiyo xaqii qofka iyo kii bulshada oo dhan walba. waxaa kale oo ay asbaabahaasi ay qayb ka yihiin arrimo bulsho oo markaasi isbiirsada, kuwaasi oo bulshada ku reeba raad aan hore looga soo kaban karin, sida caadooyinka soo jireenka ah oo jilba jiilow ka dhaxlo. amuuraha kale ee musuqmaasuqu uu ku naxo waxaa ka mid ah faqriga, baahida, kuwaasi oo sababa in mujtamacu uu fasahaado isla markaana aanu u aaba yeelin wax kasta. dhinaca dhaqaalaha marka laga eego waxaa musuqmaasuqu dhiirigeliya duruufaha dhaqaale ee bulshada soo food saara ee markaasi ay ka dhaxlaan colaadaha, go'doonka dhaqaale iyo ganacsi ee adduunka. waxa ay keenaan musuqmaasuqa xagga maamulka ah iyo weliba kuwa xagga hantida ama samaalka, si fududna loo raaco damac kasta oo naftu ay jeclaato ilaa iyo caado iyo dhaqanba ay noqoto dariiqa fasahaadka ee musuqa, kaasi oo wanaaga iyo ku dhaqankiisaba markaasi bulshada uu ku yaraado. musuqmaasuqu waxa uu leeyahay wejiyo badan oo kala duwan. noocyada musuqmaasuqa waxaa ka mid ah laaluushka, qaraabakiilka, eexda, waxaa loo yaqaano wastada iyo waajibka shaqada oo aan si fiican loo gudan, shaqaalaha oo aan cadaalad loo samayn, wakhtiga oo aan la qiimayn, nidaamka iyo sharciga oo la garamaro, wakhtiga shaqada oo aan si rasmi ah loo gudan, iyo hantida guud oo aan iyadana la dhowrin. khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha musuqmaasuqa ayaa waxay aaminsan yihiin in la yareyn karo aafadaasi maadaama aanay fududayn in hal mar xididada loo siibo. siyaabaha kala duwan ee lagula dagaalami karo musuqmaasuqa waxaa ka mid ah in la helo dareen wadaniyadeed, mid diineed iyo mid akhlaaqeed oo bulshada dhexdeeda ah. sidoo kalena waa in la dejiyo sharciyo iyo weliba qawaaniin si cad u qabanaya musuqa, ciqaab adagna ku fulinaya cid kasta oo musuqa ku kacda. sharcigaasi waa inuu noqdaa mid loo siman yahay oo si u wada qabta qof kasta oo bulshada ka mid ah, ka hooseeya iyo ka sarreeyaba. waa in la qabto madalada furan oo markaasi lagu soo bandhigayo aafada musuqmaasuqa iyo dhaxalka xun ee ay qaranka u geysan karto, isla markaana qof walba lagu baraarujiyo in uu la dagaalankeeda uu door weyn uu ka qaato. in la qabto lana joogteeyo maxaadirooyin iyo weliba aqoon isweydaarsiyo lagu wacyigelinayo laamaha kala duwan ee dowladda, isla markaana laguna qabto jaamacadaha, dugsiyada, kuwaasi oo lagu bixinayo xog iyo tusaalayaal isbarbar dhigaya libinta ay gaadheen dadyowga ka badbaaday musuqmaasuqa iyo halka ay taagan yihiin kuwa musuqmaasuqu uu barriinsaday. waxaa kale oo muhiim ah in halkii lagu arko ifafaalo musuqmaasuq markiiba laga hortago oo la baabi'iyo inta aanay ku sii faafin. in hawl walba loo diro qofkii ku habboonaa oo markaasi lagula xisaabtamo, sidaasi oo ay tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo kormeer shaqo ku soo maray xarunta wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa waxaa si cad ugu sheegay in maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu ay yihiin saldhigga horumarka bulsho kasta ay higsanayso.
sidaa daraaddeedna xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee Somaliland ayaa haba yaraatee aanay u dulqaadan doonin wax isdabamarin mid maaliyadeed iyo mid maamul labadaba. Madaxweynuhu waxa uu furay dhammaanba adeegayaasha xukuumadda heer kasta oo ay yihiinba inay ka dheeraadaan musuqmaasuqa. Ugu dambeynna si loo yareeyo musuqmaasuqa aakhirkiina loo dabar jaro waxa waajib ah in uu qof kasta oo bulshada ka mid ahiba uu ka qayb qaato la dagaalankeeda. musuqmaasuqu waa masiibo maalxatooya ninka miista ama macaasho kama mahadshee aynu meeqaam lama jeertiye meel saro wacan maanta gaarne maamul iyo shicib muwaadin kastoo mawla ka cabso madmadow iyo musuq ka fogow.